In ka badan 100,000 oo qoys ayaa ku sugan magaalada Baydhabo ee gobolka Baay, kuwaas oo ka soo barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen oo abaaro daran ku dhufatay, waxaana markii ay soo gaareen Baydhabo loo sameeyay gurmad kala duwan oo loogu gargaarayo dhibaatada abaarta ee dadka soo barakicisay. Kulan looga hadlayay sidii dadka abaaraha ka soo cararey dib loogu celin lahaa, isla markaana looga caawin lahaa dhibaatadooda waxaa maanta uu ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay, ka oo ay wada qaateen guddiga abaaraha Koonfur Galbeed iyo qaar ka tirsan horjoogayaasha kaamamka ku yaala Baydhabo. waxayna qaar ka tirsan horjoogayaasha kaamamka ay su'aalo weydiiyeen guddiga gurmadka abaaraha Koonfur Galbeed, taasi oo ku aadineed in qaar ka tirsan kaamamka oo aan weli wax gargaar la gaarsiin. xaafadda kaamamka waxaa ka tirsanahay kaamka Salaame kaamkii loogu hor dhisay Baydhabo madaxdii gobolka ama madaxdii heerinku inaga kaamka weli hor nama soo salaamin. walaalayaalow horta dad baahanaan nahay, qaxootiyadoo dhan isku mid aan nahay, kaamashii horaananu nahay. sidii baraka aan ugu yimid nin galaas biyo anna siiya waanu weynay, waxaana la leeyahay barakaca wax la siinayaa nin koob biyo ah hoonale ama irideeda soo horjoogsaday weli nama arag. kulanka markii uu soo idlaaday waxaa shir jirayd warfidyaanka u qabtay gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha Koonfur Galbeed Madoobe Nuuno Maxamed iyo mas'uul ka socday guddiga gurmadka heer qaran oo maanta Koonfur Galbeed Soomaaliya ku wareejiyay lacag dhan 200 oo kun oo wax looga qabanayo abaaraha Koonfur Galbeed Soomaaliya ku dhuftay. ujeedka halkaan la sugu mid waxa weeye in ummadda dhibaataysan abaartu saameysay oo ku nool kaamamka magaalada Baydhabo oo gaaraya 190 kaam, barakacayaasha ku nool ay yihiin 160,000 oo qof. dadkaasoo runtii dhibaatadoodii aad iyo aad u ballaaran tahay marka laga hadlayo dhinaca hoyga, dhinaca raashinka, dhinaca biyaha. waxaan u nimiday inta laydin sheegay inaan soo gaarsiino wixii loogu talagalay Koonfur Galbeed shacabka ku nool wixii loogu talagalay oo gurmadahay oo guddigu uu talagalay inaan soo gaarsiino oo $200,000. arrintaas waxay daba joogtaa qaybtii koobaad iyo qaybtii labaad oo hadda ka hor maaragtay oo halka maaragtay laga qaybiyay. arrintaas tan waa tii saddexaad. ilaahay baa ku mahadsan. waxay noo muujiyeen maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo guddiga maaragtay meesha ka shaqeynaya sidaan annagu indhahayna ku aragnay dadaal aad iyo aad u weyn. waa Cabdullaahi Nuur Aadan, magaalada Baydhabo.